السلام عليكم أصحاب خالي وايد والسلام مركز أدونك joogtaan walaalay quruxda badan soo dhawaada insha Allah maanta iyo muuqaal kaleeto rooti aad iyo aad u macaan badan oo aad iyo aad u fudud badan oo quraacda loogu talagalay insha Allah wax kastana oo ku cuni kartaa quraac kale muhiimada ma aha soo sida arkaysaan waxaa meesha baaquli weyn ayaa soo qaatay kadib waxaan soo qaatay fixisada qalalan ayaa u baahantay mid qoyan ma fiicno inta badan markii lagu qasayo kaleeto waxyaabaha rootiga waxyaabaha يعني foornada lagu dubayo soo fixisada qalalan ayaan soo qaatay wax badan kumaana shubin xaf ayaan ka isticmaalay wax yar cusub ayaan ku daray kadibna halkaas arkaysan biyo yar ayaan ku dari doonaa insha Allah kadib inta ayaan isku soo dhex qasaa wax fixisadii iyo wax yar cusub markii aan si fiican isku soo dhex geliyo muddo 5 daqiiqo ayaan waxaan rabaa inaan sugo dabool ayaan dab ku siinaa hadda waxaan ka bixinaa wixii burtuurka waa fixisada markaas waxay fiican tahay intaadan bur ku darin ka hor 5 minute oo kale ama 4 daqiiqo inaad u sugto biyo yar oo qandac ayaad ku qasaysaa insha Allah kadibna fixisada markii xoogaa yar ee noo soo faxday waxaan sameeyay insha Allah si dhaxgelinaa halkaana waxa waaye rooti inaba caadi ahayn oo laga sheekin karo ayaa ka soo bixi doono soo qiyaasta wuxuu ku xiran tahay familkaaga intuu la eg yahay inta aad rabto ayaad qasan doontaa insha Allah marka waxa waa aniga ahaanteyda caruurta badanaa rootigeeda saan foornada loogu dubo kale ama waaweyn ma jeclo inta badan marka caruurta hadii caruur waaweyn oo kale of course way cunayaan laakiin ilmaha markay aad u yar yihiin oo kale ma cunayaan xabad ukun ayaan ku soo daray ukunta hadii ay xasaasiyo ku tahay oo kale iska dhaaf insha Allah xasaasiyada ukun dadka qaar waxay ku yihiin ukunta xasaasiyo muhiim ma laakiin ukunta inaa ku darto laakiin aniga ahaan waan ku darsaday ukunta waxay kaaga dhigaysaa يعني soft jilaac oo ma sha Allah tabaaraka Allah ay ka dhigaysaa halkan waxaan kaloo ku haystaa wax yar oo sokor ayaan ku soo dari doonaa rootiga marka wax allaale waxa arabto ayaa ku cuni kartaa hadii aad maraq u samaysto ku cuni kartaa hadii kaleetana usti iyo waxaad ku cunaysaa waxyaabaha adiga aad jeceshahay kale ayaa markaas marsanaysaa ukuntii iyo biyihii iyo fixisada markay saas isku soo dhex galeen burkan sida arkaysaan madow waxa la dhahaa rock milk yani waa bur madow waxaad ka helaysaa iikaha ayaa ka helaysaa dukaan walba ayaa lagu iibiyaa insha Allah hadii aad wadankii joogto oo kaleetana ma u maleynaa inta heleysaan laakiin waxa isticmaali doontaan qamadiga shiidan oo kaleeto ama mashaarida boorashka madow oo kaleeto isticmaalay insha Allah intaad boorashka madow kariso biyo ku kariso kadib ayaad ku qasan kartaa markuu ku qaboobo boorashka madow oo kariso oo diyaariso ayaad ku qasan kartaa rootiga hadii aad awoodaan marka aniga burka madow ayaan xoogaa soo isticmaalaa kadibna burka cad oo kale ayaa halkaas iyaalo lagama sheekin karo bur yaro xoogaa yani rootiga cad saidka waa laga roon yahay caloosha uma fiicno laakiin hadii aad jeceshihiin oo kaleeto family ahaantina waa isticmaali kartiin laakiin aniga ahaanteena waxa rootiga madow ayaan daneynayna rootiga madowna caloosha ayuu u fiican yahay yani caloosha ma sha Allah tabaaraka Allah ku soconaysaa laakiin rootiga cad oo kaleeto caloosha bur kaligiis waa ku fariisanaysaa soo geed khandas ayaan isticmaali doonaa burka cad ayaan ku soo daray kaskas yar ayaan ugu soo daray wax badan kuma soo darayo waxaan rabaa cajiinka saaid uma adkeyn doona insha Allah waa arki doontaan soo marka intaas ayaan si fiican isku dhex gali doonaa waayo waxaan muuqaalka aad iyo aad ayuu dheeraaday marka waxaan ku furo wax yar oo boobsiis ee kara noqdo insha Allah laakiin waxyaabihii la iskugu talagalay ama yani intii aan isku dardarayo kaleeto si fiican u fahanteena oo maleynaya hadii aad waxyaabo qaar aadan fahmin oo kaleeto waa isoo weydiin kartaan sida burkaas ayoo kaleeto bas le ayaa waxay tahay muhiimada burka madow kaleeto hadii aad daneynaysan sawirka qaata si fiican ayaa idin tusay muuqaalka duu ku dhaafan gadaal uu soo cesho oo yani sawirka qaado insha Allah dukaan walba ayaa ka heleysaan burar kala duwan oo madow ayaa jiraan soo burka sa arkaysaan saaid uma soo adkeynay wax yar oo xoogaa waxaan ka soo dhigay yara jilcan ayaan ka soo dhigay gacan dhanna kumaanan taabanin daboolkiisa ayaan dab ku sii halkaas ayaan dhigay muddo 40 daqiiqo kadib oo soo noqday burki ma sha Allah tabaaraka Allah sidaas ayuu noogu soo faxay halkan ayaa waxaan ku soo diyaarsaday marka bur ayaan ku soo fifidiyay sa arkaysaan cajiin gacantaada taaban kara waxa waaye oo yani uu kugu dhigdhigaa laakiin muhiimadu waxa waa wax yar bur inaad saas ugu walwalaaqato markastan cajiinka waxa fiican markuu ku soo faxa aariyada ku jirta inaad ka bixiso marka waxaan sameyn doonaa insha Allah burka sa arkaysaan uu soo daba kaca saxmankaas ayaan soo diyaarsaday warqad ayaan soo kor saartay si yar oo fudud oo ma sha Allah tabaaraka Allah ayaan u soo saari doonaa insha Allah hadii aad jecleen oo kale cajiinka inuu kugu dhigdhigo wax yar waa adkeysan kartaa laakiin muhiimadu waxa waa cajiinka xoogaa inuu yara jilcan yahay oo ku qurux badan yahay burkaagana oo yani rooti ma sha Allah tabaaraka Allah oo kugu soo bixi doonaa soo halka saxanka ayaan ku soo kuskuusanaa oo soo saarana saxanka markii aan ku soo diyaariyo
ayadana sidoo kale waxaan sugi doonaa muddo 15 daqiiqo. Waxaan rabaa gacantii aan ku fidiyo kaleeto inaysan ka muuqan ay ka baxdo. soo saxankii labaad ay halkaas soo dhigtay cajiinka ma badna saa arkaysaan, famil kasta iyo qiyaastiisa ayuu ku filantahay insha allah. soo waxaan isdhahay muuqaalkan walaalaha uga faa'iiday gabdhaha jecel inay rootiga guriga ku samaystaan oo kaleeto. marmarka qaar haddii aad ka caajisto kaleeto rootiga suuqa laga soo gadaa gurigaaga inaad ku samaysto aad ayay muhiim u tahay. waayo rootiga freshka ee guriga aad ku samaystay aad iyo aad ayuu uga macaan badan yahay kan suuqa laga soo gado. يعني runta ahaantii wallahi lagama sheekeyn karo. soo mariyo yar ayaan dusha ka soo saaray muddo 15 daqiiqo ayaan sugi doonaa. halkan waxaan kusoo qaatay ukunta meeshiisa cas iyo wax yar caana ayaan isku soo darsaday. dusha ayaan ka mari doonaa si fiican ayaan isku soo dhexgelinaa. halka dhalada waxaa iigu jirto kaleeto miraha qalalan sida miraha bocorka yacni mirayaal kala duwan ayaa iigu jiro. haddii aad haysato sisinta madow kale waa ku shuban kartaa. haddii aad haysato xabsoodo kala dush waa ka saaran kartaa. haddii kalena sidiisa ayaa ku dhaafan kartaa. soo ukuntii caanihii aan isku soo walaaqay ayaan dusha kaba marinaa. kadibna waxaan kusoo dari doonaa mirihii ayaan dusha kaga soo dardaa. miraha inaba caadi maaha, aad iyo aad ay u macaan badan yihiin, lagama sheekeyn karo. miraha mideeda kale faa'iidada ay leeyihiin waxaa waaye subaxii oo kale quraac waa ku samaysan kartaa asaga iyo miraha iyo yogurtka oo kaleeto inaba caadi maaha, lagama sheekeyn karo. caloosha aad iyo aad ayay uga fiican yihiin. soo sbiiskii ay ofankii ayaan furtay oo cabaar aan soo kululeeyay. waxaan u geeyay 250 ayaan u geeyay. kadibna ofanka ayaan u diray. maasha allah tabaaraka allah. rootigeeni waa ka saakaala iska arag, lagama sheekeyn karo. sidaas qurux badan ayuu nagu soo baxay. rootiga kale qaybta kale kuma aanan daran wax miro caruurta ayaan waxaan isdhahay ama miraha kaa diidaan oo kaleeto. kadibna qaybta kaleeto ayaan u diray. lagama sheekeyn karo sidaas quruxda badan gaduudka ayuu nooga soo baxay. hadda aad iyo aad ayuu kulul yahay, lama taaban karo. waxaan rabaa hoos oo kaleeto inaan ka fiiriyo inuu soo yaro gaduutay in kaleeto. soo maasha allah tabaaraka allah. dhib malaha haddii oo geesaha ka yaro soo daldalaaco, waayo waxay muhiimada waxaa waaye inuusan cajiin wax badan cajiin oo ka yeelanin. soo rootiga marka dabka saas foornada looga soo bixiyo يعني haddii aad taabato xoogaa dhagax ayuu egyahay, yani wuu adag yahay. laakiin muhiimada waxaa waaye mara yar inaad dusha ka saartid muddo 5 daqiiqo inaad sugto. aad iyo aad ayuu markaas u jilcaa. maasha allah tabaaraka siduu u buusmaayo kaaliska arag. hadda xoogaa wuu yaro soo qaboobay, lagama sheekeyn karo inaba caadi maaha. indiina idiin macalina lagama hadli karo. rootigan macaantiisa ayaa ka darneed. soo ani waaba sugi waayo rootiga markii dubistiisa kasoo baxay. koob cana ayaa halkaas kusoo shubtay, يعني ما عيلي دوني ما فهمتين. kadibna rootigii ayaan dhexda kasoo jartay rag yah. quraacdaada aad iyo aad u fudud waaye, lagama sheekeyn karo. casho ahaana waa cuni kartaa, waxyaro fudud oo kaaliska arag ee waaye. caruurta waa siisan kartaan insha allah haddii ay yihiin caruurtiin caruur rooroon oo kaleeto. rootiga arkaysaan wax cajiina dhexda kuma laha, kaaliska arag. rootiga waxaa waaye subag ayaa hadda dhag kusoo siistay, lagama sheekeyn karo. walaa maasha allah tabaaraka allah. gacanta ilaaha noo barakeeyo. marka waxaan idinkula tali lahaa insha allah maalmaha qaar oo kaleeto ama weekendiga oo kaleeto guriyiin inaad ku samaysataan rootiga freshka macaanta kaaliska arag. anaa idin dhadhaminaya, ma fahanteen. soo muuqaalkan inta haddii nala soo gaarto waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad noo share garaysaan laagta iyo commentiga insha allah. naga iloobina. mac salaamo.